xildhibaan maxamed weli oo ka tirsan golaha guurtida ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee laga soo doorto gobolka Sool uu heliyay sidoo wasaaradda gaadiidka iyo jidadka gobolka Sool ayaa booqday deegaanka Kalcad oo ka tirsan degmada Laascaanood deegaankaas oo ay ka jirto wada xumo baasan hasaatee dadweynaha deegaankaas ayaa ugu baaqay cid kastoo gacan ka geysan karta inay gacan ka geystaan si wadadaasi loo hagaajin lahaa ee deegaanka galbeedka magaalada Laascaanood waxa weeye wadada Kabaalka Xargaga way ogtihiin wadada dhawaan baa la bixiyay waxa lagu bixiyay qaab farsamo macnaha gacan maamul iyo cid macnaha wax ka qabatay ma jirto dadka deegaanka ah macnaha farsamadooda kula baxay waxa weeye hadii aanu nahay dadka wadada maro oo isticmaala inta badan aan kamid ahay anigu waxa weeye gaadiidleyda wadada martaa kamida sida fiican uga shaqeysan kamid ahay waxa weeye caqabado badan baa naga haysta waxa weeye waa dalcad iyo dhalinyaradii la socotay hadaba waxaan aad iyo aad u soo luweynaynaa maamulka Soomaaliland maanta waa maalintii koowaad ee loogu horeysay oo maamulka hawl inooga timaado ay noogu hirgelinayaan wadada aanu aad iyo aad ugu dhibanahay masar badanay ku nooshahay nimankan iyo dhalinyarada iyo ragga noo yimid mahad baan u naqan waana ku soo dhaweynaa waxa kaloo meesha aanu ka sheeganaa wixii noo soo diray weynaha musabixi waxa noo soo diray waa ku mahadinaa Soomaaliland waa ku mahadinaa gaadiidka iyo jidadka ee gobolka Sool iyo waliba xildhibaan maxamed weli ayaa labadooduba ku dheeraaday in wadadan ay u baahan tahay si loo garab istaagi lahaa dadka deegaankaasi kaga cabanayeen wado halkan ka baxda oo ah dowga Sheekh Xidigi berigii hore sidoo ahaan jiray oo kale waxa saaka salaadkii yimi xildhibaan maxamed weli wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed waxa habeen dhaweyd oo madaxweynuhu ku sugnaa magaalada Laascaanood ay dadka deegaanka cabasho uga gudbiyeen wadadan oo ah wado aad u rafaad badan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wasiirka wasaaradda gaadiidka horumarinta wadooyinka Cabdilaahi Abakar Cismaan waxay isla qaateen in la soo indheeyo wadadan si degdeg ah wax looga qabto la soo duubay ama la sheegay dadku waa indha ku garaadle dhaga ku garaadle iyo waxyaalo badan bay u kala baxaan qof wixii arkayo dhagta ilaa uu ka maqlo BBC-da aan qaadan baa jira mid waxa dhagta looga sheego aan qaadan baa jiro indhaha inuu ku soo arko mooyaane maqal iyo muuqaalba alxamdulillah rabbil caalamiin way noo suurta gashay madaxweynaha markii ay is arkeen wadadan iyo magaaladan yar reerka degan wadadanna gacantooda ku falay cuqaashi halka ka hadashay codsigii ay codsadeen caaqil jaamac madaxweynaha uu ka codsaday wixii baahidii badnayd uu soo koobay uu yiri wadada dadku maraan oo aan ku dhibanahay iyo riiga wixii ka dhiman Canada looga keenay wixii baahidiisa dawladdu kaga xiran in loo dhameystiro madaxweynuhu markiiba wuu aqbalay wasiirka daaqiliga iyo wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka meesha wasiirada dhan fadhiyeen iyo kii biyuhu halka amarkii uu madaxweynuhu bixiyay ee uu ogolaaday hore waxa u dhici jirtay dhagax meel la dhigo oo dadku ku jabaan wax laga dhisay iska daayay inta meel dhagax la dhigo inta lagu ilaawo meeshina aan la dhisin dadkuna ku jabaan odayaashii dhagaxii meesha la dhigay wuxuuna taraba iska daayay dhismo la dhisay in uu dadka wax yeelo maanta waxa ku muuqata codsigii umadu ka codsatay madaxweynaha socdaalkiisa hadda in markiiba la fuliyay waa barxad Umar Axmed warbaahinta dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood